أنا خليل محمد سربانا شخص ها شركة وحنكون باقي كون كدورة أجو هريا لقوا بحنا أنا بحيي كون كدورة أجو هريا إلا قال يشروينها دبرة بلا حسم سقفسنين إن بحيي شربا لقوا باقي نخسة إسلام مركبة مصبحين وحلا هاي مصبح وشلا وادقين سير نولوردي الدورتا مركز كرسي كفريستي oo ina kaahina yahay naayibkaaga waad naga siisatay hadaan reer barbaranahay canaan badan xisbigaagana waa ka baxaynaa hanjabaadu waxa ay isku shareertay cirka waa ka baxaynaa kulmiye haddii ilaahay yiraahdo shirar loogu hanjabayo madaxweynaha ayaa lagu qabtay magaalada Berbera markii la bedelay maarayihii kastamka magaaladaas cuqaal odayaal dhalinyaro ayaa goobtaasi kaga hadlay hadallo xanaf leh oo ka soo horjeeda qadiyada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland arintu waxa ay gaadhay madaxweynaha waanu eednay iyo xisbigaaga ayaanu kaaga tagaynaa balse sida ay iyagu moodayeen warku uma socon maadaama oo madaxweyne biixi uu bahdiisa iyo reerkiisa aad ugu roon yahay waxa markiiba loo dalacsiyay maarayihii halka laga bedelay maareeyaha guud ee kastamada Soomaaliland muddadii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilkan qabtay madaxweynenimo ee Soomaaliland dekreetooyinka ugu badan ee xafiiskiisa laga magacaabay ayaa noqday haamba beeshiisa balse markan waxay u qaadan waayeen in iyaga laga qaaday waxse aanay ogeyn halka loo sii dalacsiinayo iyo inaanu odaygu reerkiisa aqooninba eri dalacsi mooyaane kan waxa isku xafladan magacaygu waa Suudaan Yuusuf Axmed halkan waxaan ka hadlaynaa arrimahan deegaanka Berbera sideed sano waxaan intaa ku haynaa deegaan Berbera oo la qaadanayo dadku soo guuriyo waxaan isha ku haynaa bedel dadkii lahaa lagu sameeyo barwadii madaxweynihii qaranka Soomaaliland aabaheeda gurigeedii baa la qaatay oo ogna deegaankii waxaan leenahay arrintaas arrin u dul qaadan ma waanu isku celinaynaa waxaan isku celinaynaa arrinta fara laga qaadan leenahay arrinta kastanka waxaan leenahay afar dhinac bedel nin walba gurigoodii baa lagu soo bedelay in cirbeelka u dhalmiya oo aan weynay hadaan nahay deegaanka gobolka Saaxil in ka badan kursigan maanta aan weyno kaliyaata waxa jirta dekada Berbera cali xoor baa la bedelay oo cali DB wall baa lagu soo bedelay oo ay DB wall keesatay ama cidii doontaaba ha keesantee wuxuu hadda sii wada shaqaalaha dekada cusub uga sii shaqeynaya oo maalin walba meel kale laga keeno ma jiro cid deegaanka oo laga qoray waxaan weynay barasaabkii gobolka waxaan weynay maareeyaha ama shidaalka waxaan weynay maamulihii kastamka imika aan weynay kastamkii Berbera waxaan weynay shirkadda ganacsiga dahabshiil maamulaheedii guud intaasba waxay ahayd deegaanka shaqada reer Berbera ee xilalka laga qaaday xitaa waxay soo taxeen kuwii shirkadaha bareefadka ay ka qaadeen sida maamulihii guud ee shirkadda ganacsiga ee dahabshiil waa sida ay cabashadooda u soo dhigteen iyagoo madaxweyne Muuse Biixi ku eedeynaya in uu waxaas oo xilal ah beeshan ka tirtiray amaba uu ka qaaday balse waxa xaqiiqo ah in madaxweynuhu xil uu dalacsiiyay mooyee aanay jirin xil uu beeshiisa wali ka tuuray amaba ka qaaday